السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو مقعي ومها جامع كورنتو وحنا هاي تبرس حافظ يبرا جامعات قيمة الجورناليزم كا. هدي اللي هذا ما أنت وحنا كشة كيسان دونا 10 كسابسن هنانك ورياش أي وجو رمان حسردها اللي يلا أي حسرده جيران conflicts كا أما خلافات يدا يمرك مركي جيران وحن كوب لابينا إن السويدين سؤال journalism كبر كان كهالينا ومحي mushkiladaha ugu badan ee wariyaasha soo food saara ama caqabadaha ugu badan oo wariyaashu ay la kulmaan marka ay joogaan wadamada soo koraya wadamada yaani horumarka ka haray marka ay joogaan waxa kamid ah wariyaasha waa la xiraa waxa la kamid ah wariyaasha waa xogta laga hor istaagaa waa loo hanjabaa shaqadooda xarumooda la cunaqabateeyaa iyaga la iibsadaa oo waa la prepgareeyaa oo laaluush baa la siiyaa caqabadahaas oo dhan baa jira kuwaasoo dhan maxaa ay door ku leedahay arinta wariyuhu uu u waramayo sida uu u waramayo hadii wariyuhu uu u waramo halka dambe aan ku arki doonaaye si wanaagsan oo xirfad leh haduu u waramo caqabado badan oo ay la kulmaan wariyaashu lama kulmayo haduu run sheeg noqdo haduu dhexdhexaad noqdo haduu iska ilaaliyo khilaaf beenta iyo kuturkuteenta waxa badanaysa in uu helo yani fursad ay dadku ku aaminaan oo ay ku taageeraan oo lagaga horista waliba caqabado badan uu kaga horistay kaga baxo marka warbaahin la joogo ka warmida xasradaha waxa loola jeedaa ama conflict reporting waxa loola jeedaa in wariyuhu uu gudbiyo xogta uu sheegaya si la hubo inuu u gudbiyo wax sugan inuu sheego ogow inaad wax sugan sheegtid marka ay xaaladuhu jiraan iyo marka ay xaaladu caadi tahay labadaba waxa waa mas'uuliyadaada koobaad ee wariinimada runta sheeg runtu waa waxa aad difaaci kartid ee aad xogta u haysid aad ku taageeraysid beentuna waa waxa aadan difaaci karin ama aadan ku dhaaran karin oo aadan garab istaagi karin ogow runta sheeg marka lagu leeyahay warkaagu ha sugnaado marka lagu leeyahay macnaheedu ma aha qofkas aad xogta ka soo gudbinaysaahi wixii uu sheegay kaliya sheeg baaha laakiin waxa uu sheegay hadaanay run ahayn ha soo baahin waxa uu qofkaasi sheegay xilku doon ha hayo hadaysan run ahayn ha soo baahin sababtoo adiga mas'uuliyadu ku saaran tahay waxan uu qofkan sheegayo waxan la xogtan la sheegayo xisbigu soo saaray dawladdu soo saartay mucaaradku sheegay ganacsaduhu sheegay sheekhu sheegay siyaasigu sheegay oday dhaqameedku sheegay qofka caadiga ah ee falanqeeyaha uu sheegay run ma yihiin taa isweydii wax looba ma yihiin marka la joogo conference report waxa loola jeedaa koo waxa kamid ah wariyuhu inuu wax sugan u sheego oo wax run u sheego labo in uu iska ilaaliyo in arinta ama xaaladda jirta uu dab ku sii shido dabka jira in uu baasiin ku sii shubo oo uu xaaladda sii kiciyo yani inuu iska ilaaliyo iyadana waa inuu arinta hoos u dhigo oo uu gaarsiiyo meel laga wada hadli karo meel yani aan gacan ka hadal u iman karin wixii siyaasad ah ee hadal ah ee la isku hayaayo waa iska caadi laakiin wariyo wuxuu ka shaqeeyaa inaanay arintu xaaladdu cirka sii aadin wana cirka isku shaqeeyeen waxa kale oo iyadana qayb ka ah wuxuu dhiirigeliyaa wariyuhu in uu yani wada hadal ay yeeshaan dhinacyada is haya haday noqdaan dawlad iyo mucaarad haday noqdaan laba beelood haday noqdaan laba community haday noqdaan dawlad iyo ganacsato whatever qolo kasta oo xaalad ka dhex taagan tahay wariyuhu wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo heli lahaa wada hadal iyo isfahan in la helo in isfahan iyo wada hadal ay dhinacyada ka yimaadaan ayay warbixintiisu ka shaqeynaysaa waxa kale oo iyadana uu ka fakaraa xogtan uu sheegayo saameynta ay bulshada ku yeelanayso haddii aad u warantid wax sheeg oo aadan ka fakerin waxan aad sheegaysaa bulshada saameyn iminsa la eg bay ku yeelanayaan ogow wariyo wanaagsan maaha shaqadaada koowaad waa social responsibility waxaad ka fakartaa hooyada suuqa fadhida ee ciyaalka usoo shaqo tagtay aabaha guriga dhisaya ee dhagaxa jabinaya kan biyaha dhaaminaya kan dalma gaari dameerka ku shaqaysanaya kan bajaajka wata dadka shacabka ah waxan xaaladan haday kor u kacdo seebay u saameynaysaa maxaa ku imanaya noloshooda ka fikir ha ka fikirin siyaasiyiinta ha ka fikirin haddaba waxyaabaha lagu garto marka tilmaamaha lagu garto marka laga warramayo conference reporting wariyaha wanaagsan waxa kamid ah
وريها وناكسن سدين لترن بو ورما دينع ما آدو قولا وما حقليو دولد ما قرب سيو وحو كفك وحو قدبيا أو باهيا ور بالانسد ور اسكو لترن أيو قدبيا لابو waxa uu ku hadlaa marka uu wax tabinayo luuqad dhexdhexaad oo aan dhinac garab saarin hadallada xitaa uu qolo ka soo qaadanayo wuxuu ka fikiraa inaan loo arag inuu dhinac u jiro oo uusan dhinac garab ka saarin xog kasto loo sheegana wuu hubiyaa ogow beenta waxa ku sheegi kara qof kasto dan leh xilku dooraha hayo adiga mas'uuliyadda ku saaran waxa weeye waxaan lagu sheegay run ma yihiin waxaan la doonayaa run ma yihiin waxa la yiraahdaa wariyaha wanaagsan waa qofka tilmaantan leh waa qofka critical thinker ka critical thinking marka journalism ka la joogo laba shay baa lagu soo koobaa waxa weeye qofka curious ka curious waxa weeye qofka isweydiinta badan is yiraahda maxay waxaan u dhaceen maxaa imika ku soo beegay why sidan ugu dhacday maxay sidaa u noqon weyday maxaa xaaladda xilligan keenay maxaa waxbuu isweydiiyaa waxbuu rabaa inuu ogaado qofka muxuu xogo hayaa maxaa dalka ka soconaya inuu wax isweydiiyo jeceliya barba laba tilmaanta labaad waxa weeyaan waa skeptical waxa weeye qof shakilow wuu shaki mar walba wuu shakisan yahay wuxuu isleeyahay maybe waxan waa been maybe dhinac kala jira maybe xogta waxba baqan yani wixii loo sheegay iskama aamino oo iskama rumaysto waxaan ka boqol qaba yani waan ka cuudaranaya tusaalahan in soo qaato marka aan tababarada sameynayno tusaalahan soo qaato waxa weeyaan oo wariyaasha qaar aan ku tusaaleeyo aroosada marka la sameynayo waxa loo yeeraa islaan braamburta islaanta braamburaysa markay soo gasho arooska waxa ugu horeeya dadka ay weydiiso waxa weeyaan inanta magaceed inanka magacii waa qolama yaa raabtiya waxaas ayagu sida dhaqanka Soomaalida aan ognahay dabadna islaantaas way u braamburtaa iyadoo aan qofka garanayn braambur bay u samaysaa iyadoo aan qofka garanayn waxa laga yaabaa qofkani waxa ay ku sheegayso inuu sa ahaynba laakiin way u braamburtaa waa shaqadeeda haddii waribaahinta ay sidaa noqoto oo aad wax walba oo lagu sheego aad iska rumaysato iska aaminto ma ahid wariye critical thinker ma ahid wariye conflict ka shaqayn kara ma ahid wariye si miisaaman oo mas'uuliyad la u warrami kara xogta marka aad sheegaysid isweydii waxaan rumeeyeen been ma noqon karaan wax kale dheeraada ma jiraan xitaa waxa la yiraahdaa haddii qofku soo waco uu ku yiraahdo xog baan ku hayaa waxaan ku siinayaa xog yani waxbaan ku liigareynaya adiga guriyaan ku siinaya isweydii way aniga qofkan in soo target gareey waxa aniga rabaa muxuu wariyaash kale u la hadli waayay way maxaa xogtan in siinaya maxaa isaga dan ugu jirta taa isweydii waxa kale iyadana muhiim wuxuu mar walba eegaa xaaladda contextiga iyo waxaan maxaa ku hareeraysan ayuu war eegaa wariyaha wanaagsan ee ka warramay conflictiga sidoo kalena codad kala duwan bulshada qolo kasto ay sheekada saameyn ku leedahay ayuu ku soo daraa hal dhinac intuu codkeeda qaato hal qolo hadashay sheeko kama dhigo maxaa loo leeyahay wariye marka aad warka soo tabinaysid waliba xilliyada ay xasaraduhu jiraan dadku waxay doonayaan xog ay ku go'aan gaaraan xogta lagu go'aan gaarayana hal dhinac kama timaado xogtaas waxay ka timaadaa qolada A aaminsan iyo qolada B aaminsan iyo qolo dhexdhexaada intaba inaad adigu soo raadisid oo aad isku soo warbixin ka soo samaysid ogow sida imika badatay ee warbaahintii inta la tago shirjira in la tago qofkii hadal intuu bilaabo u dhamaynayo la iska soo deynaya taas ma aha warbixin wariye uu sheeko wariye sameey ma aha waa iska freedom of speech waa dad iska hadlaya laakiin warbixin ma aha sheeko ma aha sidoo kale warbixin ma aha inaad shirjira idoo qof qabtay aad dhex galgashid oo aad dhanka kale waxa uu yiri dhinaca kale waxa soo hadal qaaday dhanka kale inaad tirahdid kaliya sheeko ka dhigtid iyadana sheeko ma aha xilku doon ha hayo wuxuu doon ha ahaado sidoo kale waxa uu wariyaha conflicts wanaagsan tilmaamaha lagu garto waxa kamid ah wuxuu muhiimadda saaraa arrimaha nabadda iyo sidii waxan xal looga gaari lahaa iska ilaali marka conflicts ku jiro ka taxadar hadallada naciibka abuuraya waxa weeyaan in cid lagu xadgudbo shakhsiyadeeda in cid lagu yani wax lagu sheego aysan ahayn yaa lagu dhexmarin cid la caayayo ugu warbaahintu ma aha meel la iska caayo ma aha meel qolo soo hadasho qolo kala soo caydo la iska caayo ma aha warbaahintu ma aha shaqadeedu isku dir in la yiraahdo hebel basaa ku yiri maxaa leedahay adna u jawaab
hebel ba waxa ka sheegay heblaaya asaas ku tiri maxad leedahay ma aha asaas shaqo wariinimo wariinimadu waxa weeyaan in wax walba oo cunfi abuuri kara iska ilaalisid ogow dadka aan wareysano dadka waramaya shirarka jaraa'id qabanaya badankoodu waa emotional way cadiifadaysan yihiin xaalad bay ku jiraan waxa laga yaabaa qofka xilkiiba laga qaaday dan marka cadiifad baa uu careysan yahay caradaas ayuu ku ilaawayaa wax badan oo uu xeerin lahaa ayuu ku ilaawayaa marka adiga mas'uuliyadda la tahay inaad ka fikirtid sidii waxaas ay u yaraan lahaayeen wuxuu kaloo iska ilaaliyaa oo aad wariyaha wanaagsan uu iska ilaaliyaa waxyaabaha yani qabiil shaabad ku sameynaya reer anaga xaggeena hadda qabyaalada aad ugu badan qabiil wax calaamadinaya iska ilaali oo wixiiba u yeelaya waji qabiil sababtoo waxyaabaha ugu badan dadku ay ku dagaalamaan weeyaan iska ilaali ciwaanka aad isticmaalaysid haddaad isticmaasho ciwaan ka dhigayeen magaalada waa lagu kala tegay oo kala adigiiba xaaladtii abuuraya haddaad abuur ciwaan isticmaashid maanta ugu dambaysa qoladaas waa baaba'een wax yani ciwaanka isticmaalaysa ka taxadar sidoo kale iska ilaali waxyaabaha kuturkuteenta ah iyo aragtiyaha khaldan ee la aaminsan yahay ee stereotype-ka ay runta ahayn ee dadku ay kala aaminsan yihiin inaad baahisid ree hebel baana neceb qoladaas asaas ah qoladaas waxa aaminsan hebel waxa soo damacsan yahay يعني stereotypes كاس لا iska raadiciyay ee aan runta ahayn iyadana iska ilaali oo ka taxadar saddex shay inaan kala fahnaa muhiim ah hadaan wariyaal nahay koo waxa weeyaan misinformation waxa la yiraahdaa xogta khaldan warka beenta ah ee wariyo uu baahiyo isagoo aan ku talagelin xog baa si khaldan ku soo gaartay ama aadan xaqiijin wariyaha hadii uu baahiyo xogta isagoo aan ku talagelin misinformation baa la yiraahdaa haddii si ku talagal xogta loo khaldo oo warkii si ku talagal been loo sheego disinformation baa la yiraahdaa waa warkii ku talagal loo khaldayo been loo sheegayo sidoo kale haddii yani arrin cid lagu takoorayo ama rabashad abuuraysa haddii la baahiyana hate speech baa la yiraahdaa haddii cid la takoorayo oo ay cid hoos u dhigayso ama ay mushkilad abuurayso dadka isku dhac keenayso hate speech baa la yiraahdaa waxaan qaybtan waxaan si degdeg ah iyadana ku kofargarayn doonaa marka qofka wariyaha ah uu tabinayo mudaharaad maxaa looga baahan yahay mudaharaadida marka la tabinayo badana wariyaashu waxay la kulmaan xaalado iyo mushkiladaha la kulmaan maxaa mushkiladaha sabab u ah maxaa keena si aan u fahanno horta sida wariyaashu ay u tabiyaan mudaharaadyada waa inaan fahanno yani mudaharaadyada aynu fahanno mudaharaadadu markay dhacayaan waxa aad kor ugu kaca oo aad u abuurma yani xaaladda siyaasadda kor u kacda markay mudaharaadadu dhacayaan waxa sidoo kale kor aada bulshada carada bulshada kor aada waxa sidoo kale yani hawl badan qabto oo shaqo gala oo isku dhacyo ay ka yimaadaan waaxyaha nabadgelyada sidoo kale mudaharaadadu waxa ay keenaan in warar khaldan iyo been abuur fara badan la baahiyo kuturkuteen fara badan in la baahiyo haddii aan soo xigano qoraal ay qortay ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn ayaa oraah ay leeyihiin waxa ka mid ah wariyuhu marka uu tabinayo mudaharaadyada waxa looga baahan yahay in uu la yimaado si dhab ahna uu la yimaado ethical judgment oo ah go'aan gaarid anshax ku salaysan oo warbaahinta ah iyo habka badqabkiisa inuu nabadgelyadiisa iyo safetygiisa iyadana uu ka fikiro xilliga mudaharaadyada marka mudaharaadyada la abuurayo laga warramayo oo wariyuhu uu ka warramayo waxa muhiim ah wariyuhu in uu sameeyo horta research mudaharaadkan uu fahmo waxa loo mudaharaadaya yaa abaabulay yaa mudaharaadaya dawladdu maxay ku jawaabi doontaa maxaa u diyaarsan maxaa aniga iga soo gaari doona xagee baan istaagi karaa xagee baan ka warrami karnaa inuu ka fikiro oo research u sameeyo oo si fiican u fahmo mudaharaadkan horta iyo waxa ka iman kara ma runbaa mudaharaad baa ma kooxaha hubuutaa ku dhex jira ma rabshadaha ma colaadaha dhici doona maxaa dhici doona horta inuu fahmo oo xaaladda fahmo waxa kale oo iyada muhiim ah inuu fahmo qofka wariyaha maxay doonayaan dadkan mudaharaaday waa maxay waxa ay rabaan oo ay doonayaan inay fahmaan sidoo kale waa inuu isagana uu eego oo uu dulsha kala socdo xaaladda qiimeeyo xaaladda nabadgelyada inuu qiimeeyo iyo khataraha ku iman kara marka kadib uu qorsheeyo hanaankii uu yani cid uu la xiriiri lahaa haddii uu meesha ka baxayo siduu uga bixi lahaa inuu iyadana ka fikiro
haddii xaaladdu ay kor sii aado rabshaduhu ay bataan wariyaha la soo weeraro xagee buu ka baxsanaya xagee buu gelaya oo exit strategy maxaa u ah inuu iyadana ka fikiro isweydii warkan aad baahinaysid iyo mudaharaadkan aad soo kafargaraynaysid iyo badqabkaaga yani keebaa muhiim ah muxuu khatar kugu keeni karaa ka fikiro isweydii ugu dambayn marka aad tabinaysid mudaharaadyada iska ilaali qodobadan samee waxa samaysaa ahow qof neutral qof dhexdhexaad ahow qof aan dhinacna ahayn ahow calaamadaha qaadan qolo calaamadooda ha qaadan haddii tusaale ahaan oo kale qolada mudaharaadaysa qayb ka mid yihi ay halkan ku soo xirtaan warcas maracas ay ku soo xirtaan ha soo xiran wax calaamada qaado calaamadaadii saxaafi inaad tahay lagu garan karo ha dhex geli dadka ha soo dhex socon sababta meesha ka soo mudaharaadayeen dadka haddaad soo dhex socotid dee adigaa mudaharaad ku soo jira meel ka baxsan ogow sidoo kalena dee muuqaal maba duuban kartid haddaad mudaharaad ku dhex jirtid waxaad u baahan tahay inaad tagtid meel ka baxsan meesha dadkani ay marayaan si aad u heshid shot fiican si aadan ugu dhex milmin si aan adiga laftigaagii xitaa dadkan mudaharaadaya qudhoodii dee khatar baa kaasoo gaari karta oo dad caraysan iyaga adigiiba ku arki karaan inaad dhinaca kale ka timid oo aad qolada kale marka meel dhexe istaag oo ahow wax kastoo lagu sheegay information kastoo meesha ka yimaadana xaqiiji dadku markay hadlayaan oo ay cara hadlayaan yani ha iska baahin waxoodii hubi waxa ay sheegayaan sidoo kalena nabadaada iyo ammaankaaga ka taxadar meel badqab leh inaad joogtid mar walba oo aad ka fog tahay waxan si yani taxadar leh ula soco xaaladda mudaharaadka sidoo kalena xogaha waxaad ka xigataa cid la isku hadlayn karo ha samayn ha ku biirin qolyahan mudaharaadka samaynaya ha dhex gelin ha ku biirin sidoo kalena ha baahin kuturkuteen iyo warar been ah qodobka saddexaad waxa weeyaan ha sheegin xog aan la xaqiijin sida tusaale oo kale dhimashada oo kale haddii dhimasho la sheegayo waaxyaha caafimaadka iskale ogow qofka goobjoogaha ahi dhimasho ma yaqaano qofka goobjoogaha waxaa laga wareysan karaa sidee wax u dhaceen laakiin imisaa dhimatay iyo imisaa dhaawaca ma garanayo waxaa laga yaabaa qofkan ambulasta lagu qaaday ee caadiga ah ee isagu qofku u arko inuu caadi yahay laga yaabaa inuu isagoo fadhiyo u arkay laakiin uu dhintay qof kale oo laga yaabaa inuu calooshu ka soo dhacday inuu qofkani uu arkay uu haysto inuu dhintayna inuu nool yahay baa laga yaabaa waxaa garan kara dhimashada iyo dhaawaca waxyaha caafimaadka isbitaalada la geeyay ayaa laga xigan karaa ha sheegin marka wararkaas aan la hubin ha sheegin sidoo kalena ha isticmaalin luuqad cirka kusii shareeraysa wax arrintii kor u sii kicinaya dadka sii kala fogeynaya ha isticmaalin oo ha samayn oo ha sii isticmaalin live reportingka marka mudaharaadadu ay socdaan khatar badan baa jirta haddii aad toos wax u tabisid mudaharaadka haddaad toos u tabisid mushkiladaha uu leeyahay waxaa ka mid ah waxa ay keentaa in rumorskii iyo wararka turkeentaha ay hawada galaan oo la baahiyo oo warar beena dadka ay ku baahaan sidoo kale waxay keentaa in xaaladii ay cirka kusii shararto oo ay dabkii baasiin kusoo shubto waxa kaloo ay kor u qaadaa isku dhacyada iyo mushkiladaha qofka wariyaha iyo tifaftirihiisa marka mudaharaadada iyo xasaraduhu ay jiraan waa in ay maskaxda ku hayaan oo ay eegaan in yani ay iska ka taxadaraan xogta aan la hubin ee wariyuhu u baahinayo sidoo kalena inay la socdaan luuqadda la isticmaalayo si xirfad leh u isticmaalaan sidoo kalena in ay waxyaabaha khasaaraha ah ay ka xaqiijiyaan cidda iska leh marka mudaharaadadu ay dhammaadaan qofka wariyaha ah ee xirfadlaha ah wuxuu ka fekeraa dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay kow wuxuu isweydiiyaa waxaan maxaa sababay root cause muxuu ahaa maxay dadkan ka kaceen maxaa sababay runtii ayuu soo saaraa waxa kale uu ka fekeraa dadkan baahidooda bulshadu maxay u baahan tahay oo ay ka fekeraan waa maxay xalalka nabadgelyada taageeraya ee ay tahay in laga shaqeeyo sidee baa loo wada hadli karaa oo haddana isla xisaabtan uu imaan karaa ayuu ka fekeraa oo maskaxda ku haya haddii aad xaalad tabinaysid haddii aad warar sheegaysid meel conflict haddaad ka shaqaynaysid waaba iska conflict xaaladaha aan ku shaqayno oo dhane ogow mas'uuliyadda koowaad waxay kaa saaran tahay bulshada iyo naftaada ka taxadar waxaan aad sheegaysid aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku gabagabeynayaa haddii aan la yidhaahdo wariyaha wanaagsan waa wariyaha mas'uuliyadda muujiya
marka ay xaaladuhu jiraan ogow xaaladdu markay jirto ayaa la gartaa qiimaha aad leedahay haddii aad noqotid qof iska dhex orda iska dhex yaaca dhexdhexaadnimadii ka taga mushkilad bay kugu noqonaysaa badqabkaaguna wuxuu ku jiraa inaad dhexdhexaad ahaatid run low ahaatid aad baad u mahadsantihiin tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo